ونكسن عيدا ويعطي مانتا ونكسن عيدا aad ayay u mahadsanyihiin fanaaniinta sharafta badan quruxda badan isla markaasna codkooda toolmoon ay markasta ugu talagaleen inay dadweynahooda ku qanciyaan inagu maqashinay heesta ciida عيد وناكسن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير كلنتي وناكسن تدويناها وذا نقل صعود ودمانتين ومركل يوم مناسبة عيد صنفر وعيد سدحات وإنه صوك شيء يدو لدى لا داعي عابق كوفيد 19 إن كستوا دون كميلا بدن وكسي دمانيو دلال أي صوماليا كميتهين آدمود إنه حتى أنه ليهي إلهي هاي نقصي قادي waxaa farxad weyn inuu ah inaan munaasabada ciida aan markii lixaad ku qabanno xarunta Soomaaliya ee Muqdisho Soomaaliya oo sideedaba xagga siyaasadda gooni u kala fadhiday ayaan waxaan ka baqaynaa cudurkaasi inuu saxaafadda iyo fankaba soo gaaro fanki iyo fanaanka ma aha in la kala xigsado sida dhagaysigoodaba aan loo kala lahayn maamulla dadkuba ha joogaan markay iyaga dhaxdooda noqoto waa inay isa soo dhaweystaan isku duubnaadaan oo is caawiyaan waxaan u yeerayaa taxyare iyo dabaaldega ciid ulfidriga 2022 iyo hobolada dalka waxa kugu diyaara xidigaha wada codka malan oo fanka maanta daadihinaya Ismaaciil Aarka oo uu fankiisu ka hana qaaday caasimadda Xamar oo sanadkii tagayna bariya soo joogay Hargeysa oo uu isku soo baxnaaninay ayaa barnaamijkan isu soo xilqaamay inuu sidoo yahay u dhaco balse kali kuma aha waxa la hagayay fanaaniinta Xamar midku ka sii cusub intaan dhinacaaga joogeen ku dhisayo حقيق بعميسو دلعك وقادا حقيق بعميسو دلعك وقادا انت دولك جوغو haddaan soo qaadano heesaha sida la yaab kale loo qaaday taasoo ku dareysin doonta in fanka Soomaaliyeed weli nool yahay oo jiraan fanaaniin sii wadi kara bedelina kara kuwii hore hadaway oran lima heesine layla mahallin duhurday helay hoodayo isoor caashaqa anishini meelaha hore oorsada wali loma haladshay way haweenka hoobay haki caashaqa yu habaabine شادينو كلنا عكارو كدايو عودالا ديناتاهاي عندي جيجي طبعا برامجكي si toos ah ayuu inoogu bilowday intana hablood qaybtood caawa Cabdi Fataax ayay la heesi doonaan Shaadiya ayada qudheeda garabkayga ayay taagan tahay Shaadiya haye odayga ma fasaxday leentana gabadh waa tacaaw la heesisay inta waxba igama dhibays in kala daran fanaaniintu waayadan qudhooda waxay bilaabeen in ayagu iska dhex bilaabaan gaashaanku ma ku adag yahay fanaaniintii hore inkastoo ay jireen kuwa isqaba haddana saa ay sumay gursan jirin jiilka cusubse wixiiba fashion bay ka dhigeen laba isugu aaday haddii la dhaho hala tiriyana lama soo koobi karo laakiin dabaaldegeenan maanta waxaa nagala qayb qaadanaya Shaadiya Sharaf Cabdi Fataax Yare Yuusuf Xaybre iyo Bilkhayr Ahmed lamaanayaashan ayaa isla qaada dhigaya laba heesood oo masraxa dhaqaajiyay Cabdi Fataax iyo Shaadiya oo isaga mahad celinaya maalmahoodii wacna iyo macaanka isla muusadeen Yuusuf Xaybre iyo Bilkhayr Ahmed oo iyagana daydaygoodii ka waramaya iyo sida ay isku soo tilmaamsadeen ayay murtidii ku soo idlayeen taankii u macaan badan iyo waan tukubay tilmaan ugu raadsin jacaylka talaasha ku taagay gacantee taajir hooyadiisa taag
تابسيري هدانا تهلواي تابسيري هدانا تهلواي وانتلامي محان كوغو تامي وانتكوبي تلمان كوغو رفشي وانتلامي محان كوغو تامي وانتكوبي تلمان كوغو رفشي maxamed kaadid macallinkan heesaha sidii hore u qaada qayb weynna ka qaatay qabsoomidda barnaamijkan iyo xidigta fanka u baahi qabo iqra indhadeer ayaa isu celcelinaya aboowe iyo abbaay waa hees waayaa xusuusta dad badan maskaxdooda dib u celin doonta kalgacaylka geeska aga abbaayo adnayo ku gees marine abbaayo ijiyo hasiidayni abbaayo galgacaylka guumooye iyo bowe igu noqoy baguuraane iyo bowe galgasho hurdadi nacayne iyo bowe princess istahil xidigtan reer jigjiga oo muddooyinkaba xamar joogtay laguna yaqaano heesaha dhiirigelinta ee one man one vote maalmahan la isku hayay ma ahe ogow waa mid ku gaara guriga hoos kaga soo xiro princess oo iyadii hal xaas ka badan layaasha la kala ilaaliyo ayaa maantana qaadaysa hees ay hablaha uga digayso inay iska jiraan nimanka diiqa oo tay arkaanba oorta ku dhagaya princess istahil walaashay soo dhawow waxaan filayaa waa markii koobaad aynu kulanno laakiin waxaan daawin jiray heestii haylo guursan gabadh kale oo guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ay noqotay hub ay ku dagaalamaan ama ay mararka qaarkood waxa weeyaan walaal hadda soo bixaan shirkado soo qora duruucda ku soo qora haylo guursan iyo haylo meeraysan iyo waxyaalo noocaas ah maxaad heesaha carada la u qaadaa ma gabdhaha nimankaas ku daras qalbigu dilaya waqtigaag le gabdhuhu dayaca waqtigaag le qalbigu dilaya waqtigaag le guursan munaasabadan oo noqonaysa tii ugu heesaha badneyd abid oo hal loo kala dhigo haddii la dhahana aan ka yaabayno inay ciidaba nagu dhaafto ayaa heesaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid adoobnimo naftii way diidantee dib u dhaca waqtiga qof tarinta oo raggu wuxuu ka diido igadaysa baan doondoonaya naftu maalma ku mashquushay maslaxada jacaylkaaga mushkiladan dhammaanaynin muddo badan kuma hirbeeshay anigana waxaan rabaa inaan shaadiiska bareejeeyo alla xaajigaygaan hees wadaa adaa dhabu diiday oo dheef shaxidkayga adaan kugu dhaatay oo dhaxalkayga sida u badan dhalay baan dhibtaa ka ilaalsha ka dowra xumaho dhabta inta kugu haya
qiiray laabtayda ku saaqan intaan sidii lahaa qalbiga suran lahaa intaan sidii lahaa qalbiga suran lahaa kasiir shaankayga samir baan ku ilaabay waxaan qeexaa intaa qisadi caashaqeena iyo nolosha qiimaha wacnay dhankaaga markaan imaaday markaan ku soo dhawaaday jacayl dhababan dareemay jawiyo farxadan dhaxaaday maalmihii kulankee dhexdeena markaan dayaha ku saaray dhankayga waxaan dareemay inaan helay ruux dhammaysa inaan helay ruux dhammaysa adaa kabay maanka kaabay kordhiyey rajadii nusqantay wixii kurba iyo lurgaari kashayda adaa ka baantay adaa kaafiyey naftaydo kasbaday rabitaanka dooqa sida daruur hilaacdo hogol gogac la bixisaan isha kugu hayaayo darankay hagaaya heegan kuu noqdo baybe kuu heelan adige ado jaalahaygiyow maqalkaaga jecelahay intan ku jidbaysnaa sodigii jirnacay barnaamijkan oo bilow ilaa dhammaadba aynoo daadihinaysay suxufiyadda xillig amaal qaaji ayaa gool ku soo idlaatay dhanka farsamada iyo filim qaadista bahda cabdiaskari tiyo muqdisho oo uu horkacayo injineer kabacad waa cabdiaskar oo idiin leh ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr